Lego TV isha wararka ku xirnow saacad walba Lego TV وهاجي أمريكان مقدشو قلها حرف اللياشة عافمات هوين كصومالية ده هي ما أنت برشة لقب صديها معالين حقوق أذنها وريها يجا محمد جعل ومناسبات سكاقب قلي أي تفاصيل وركني نويجي maantu ay tahay 19 Agosto oo ay caalamka u aqoonsadeen maalinta xuquuqul aadanaha ayaa laga xusay qaybo badan oo ay dunida ka mid tahay golaha xirfadlayaasha gabdhaha Soomaaliyeed ayaa maanta la qaybsadeen munaasabada xuquuqul aadanaha Dictoreso Faadima ayaa la hadashay Lego TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. guud ahaan golaha xirfadlayaasha caafimaad ee gabdhaha Soomaaliyeed oo isku duuban waxay maanta dhamaan ka hadlaan muhiimadda ay leedahay World Human Rights Day oo ah maalinta xuquuqda aadanaha. sidaan ka warqabno xuquuqda aadanaha qof walba oo shakhsi ah waxa uu leeyahay xuquuq gaar ah inkastoo xuquuqda aadanaha ay kala leefar tahay. gabdhaha caafimaadka marka u soo laabano aan rabnay in maanta aaska ama beesinka aan ka hadalno ee leedahay muhiimadda waxaa jira dad badan ee u baahan in la caawiyo. waxaa jira dad badan ee aad u tabaaleysan. waxaa jira dad u baahan samafalnimo. waxaan rabnaa barnaamijkeeni inaan kaga faa'iideysano muhiimadda ay leedahay samafale. waxaan ku guuleysanay dhowr qodob. waxaan fulinay dhowr siyaabood oo aynu u heli karno inay horumar u tahay bulshada. waxaan ku noolnahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. waxaan la noolnahay dad kala leefar ah. waxaan la noolnahay dad dhibaataysan. ha u badnaada dadka ku nool kaamyada ma helaan wax xuquuq ah ee ku aadan caafimaadkooda ama ha ahaato mid xuquuqda aadanaha. waxaa jira dhibaatooyin badan ee ka jira kaamka. shalay ugu dambeysay waxaan fulinay samafale oo aan u sameynay gabar yar oo cibaado laho 7 jir ah. waxay ku nooshahay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir galaaska 3aad ee dugsiga hoose. cibaado waxay bulshada u codsatay inay u gurmadaan gaari. alxamdulillah gurmad badan oo aan sameynay waxaan ku guuleysanay in shalay cibaado aan gaarsiino gaarigaasi ay ku aado waxbarashada. sidoo kale golaha wuxuu ku guuleystay in kaamida dadka ku nool aanan haysanin daryeel caafimaad la soo wado lana keeno isbitaalada. kaamka markaa tagno waxaan la kulanaa dad u baahan xaalad caafimaad sida in nafaqa dari ay haysato hooyada, in hooyadu ay tahay anemia, cunugana sidoo kale inuu yahay odema or anemia, inuu bararay ama dhiig la'aan ay hayso. nafaqa dari oo hooyada iyo cunugeedii aad la soo wajahda aysan ka warqabin xaaladda hospitaalka. dalkeena markaa fiiriso wuxuu leeyahay hospitaalo ha ahaado kuwa public ah ha ahaado mid bareefad ah. kuwa public ah ee dawladda la wareegtay ayaan ku xirnaa sida isbitaalka weyn ee hooyada iyo dhalaanka ee Banaadir ee ku yaala magaalada Muqdisho. wuxuu naga caawiyaa inaan dadka soo qaadno aan keeno isbitaalka isla markaana si gurmad degdeg ah loo caawiyo loona tacaalo xaaladooda daawooyinkooda iyo waxoodan la siiyo. samafalku waa qaybta ugu wanaagsan ee aadanaha waana mid kaliya ee ajir ka heli kartid samafalka. samafalka ayaa ah xaaladda ugu weyn ee qofka bini'aadanka uu nafsadiisii ku dareemo shakhsiyad ahaan inuu yahay qof. si kastaba ahaatee golahan ayaa mar walba waxa ay la wadaagaan bulshada Soomaaliyeed munaasabada noocan oo kala ah. Maxamuud Maxamed Jacal, telefishinka Lego TV magaalada Muqdisho.